السلام عليكم وعليكم السلام. وتهاي dhageystayaal saaxiibayaal waxaad ku soo dhawaataan sheeko cajiib ah oo ciwaankeedu yahay qaatumada wanaagsan. maalmaha kamid ah ayaa nin wadaad ah oo gaarigiisa wato waxa uu wadada ku arkay wiil yar oo daba ordaya gabar labisan si uu ula hadlo ama u shukaansado. wadaadkii aad buu u dhibsaday sida anshaxumada ah uu wiilka u foodeynaya gabadha. markaas ayuu go'aansaday inuu u nasteexiyo wiilka. kadib gaarigiisa ayuu ka soo degay oo waxa uu u yeeray wiilkii una nasteexiyay isagoo soo xasuusiyay cabsida Ilaahay iyo ciqaabta aakhira jirta. kadib wiilkii dhalinyarada ahaa aad buu u qalbi khushuucay oo waxa ka soo daadatay ilin isagoo leh sheekhow wax iwaaniyo sanadahan maanan arag oo xaqa i tusa. waxaan dhex dabaalan jiray dambi iyo macsi waxaana mahad leh allihii ii kaa soo diray inaad iwaanisid igumana ogid maanta kadib dambi. sheekhi aad buu ugu farxay wiilkaas siduu xaqa Ilaahay u tusay. kadibna waxa uu ka qortay nambarkiisa. muddo laga joogo 2 isbuuc ayuu wadaadkii soo xasuustay inankii dhalinyarada ahaa in uu waco. waa uu wacay markaasna waxa ka qabtay taleefanka wiilkii. markaas ayuu wadaadkii ku yiri assalaamu calaykum ma i garanaysaa aniga? wiilkii ayaa yiri haa waan ku garanayaa, waxaa tahay wadaadkii Ilaahay ii soo diray iina nasteexeeyay. alxamdulillaah waagii baa igu dambaysay macsi iyo dambi oo salaad igama tagto. alxamdulillaah. sheekhii ayaa yiri waa ilaah mahadii ee goormaynu kulannaa? wiilkii ayaa yiri galabta casirkii xaafadda ayaan kugu martiqaadayaa, igu imow insha Allah. sidii baa lagu balamay waxaana la gaaray waqtigii balanta. wadaadkii markuu yimid xaafadda ayuu iridii soo gargaraacay. waxaa ka furay nin oday ah oo wajigiisa ka muuqato murug tiiraayo badan. markaas ayuu yiri aaway hebel? wiilkii dhalinyarada ahaa odagii oo yaaban ayaa yiri fiiri gacmahayga sooma qoyana oo hadda ayaan iska dhaqay ciidii aan ka soo duugay wiilkayga. subxaanallah. sheekhii ayaa yiri inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun oo saakay baan la hadlay galabtaana balansaneen. aabihii ayaa yiri sheekhow wiilkayga salaad duhur ayuu soo tukaday, masjidka ayuu kitaab ku soo akhristay. kadib waa uu yimid waxa uu igu yiri xoogaa baan seexanayaa isagoo qadeenin sidii ayayna nafta ugu baxday. sheekhii aad buu ugu naxay mowtul fajaa ku yimid wiilka. odagii dhalay ayaa sii raacsaday warkiisa. wiilkayga waxa uu ahaa qof ay dhalinyarnimo qaaday oo dunuubta iyo macaasida ku dhaca mar walba. laakiin 2 toddobaad ka hor wiilkayga aad buu u soo toosay oo salaada kama tagi jirin. xitaa waxa uu tukan jiray salaatul leyl. ee goorma ayaad isbarateen wiilkayga? sheekhii baa ku jawaabay 2 toddobaad ka hor. aabihii ayaa yiri oo ma waxaa tahay wadaadkii wiilkayga wadada toosan tusay? wadaadkii ayaa yiri haa. aabihii intuu ku soo booday ayuu dhunkaday wadaadkii kuna yiri sheekhow wiilkayga sabab fiican ayaa u noqotay oo naar baad ka badbaadisay. jazaaka allah. allow khaatumada noo toosi. سبحان من يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل. سبحان من حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه.